kulanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo toddobaadlaha isla markaana u qabsamo maalin kasta oo Khamiis ah ayaa maanta xilka qaadis loogu sameeyay taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya. kulanka golaha wasiirada waxa guud ahaanba lagu ansixiyay dacwooyin iyo sidoo kale codsiyo ka yimid guddiga amniga kan difaaca iyo kan cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dalbanayeen isku shaandhayn lagu sameeyo taliska ciidamada qalabka sida daahir aadan cilmi dhaqarsha taliyihii ciidanka xoogga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilka qaadis lagu sameeyay waxaana lagu bedelay General Odawa Yusuf Raage oo horey u ahaa taliyihii ciidanka lugta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale taliyaha nisa oo muddo 10 bilood banaana ayaa waxa ugu dambeyn maanta loo ansixiyay inuu noqdo Fahad Yaasiin Xaashi Daahir oo muddo u hogaaminaya ninkaas inuu ahaa kusimaha xilkaasi. sidoo kale taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya Bashiir Cabdi ayaa xilka laga qaaday iyadoo loo magacaabay Cabdi Xasan Xajar. sidoo kale wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta waxay xilka qaadis ku sameeyeen taliyihii ciidanka asluubta dowladda federaalka Soomaaliya oo loo magacaabay General Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyadoo xilka laga qaaday Sariye Guuto Bashiir Goobe oo horey u ahaa taliyihii ciidanka asluubta dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana xilka qaadista maanta ay sameeyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya saxaafadda u akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. ugu horeyn waxaa xilkii uu hayay laga wareejiyay General Aadan Cilmi Indhaqarsho taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay Sariye Guuto Odawa Yusuf Raage oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa xilkii uu hayay laga wareejiyay ama laga qaaday General Bashiir Cabdi Maxamed taliyaha booliska Soomaaliyeed waxaana xilka loo magacaabay General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. sidaas lamida waxaa xilkii uu hayay laga qaaday ama laga wareejiyay General Sariye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe waxaana oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo hadda wixii ka dambeeya noqonaya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. isku shaandhaynta maanta lagu sameeyay taliska ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo gudiyada amniga difaaca iyo cadaaladda guud ahaanba ay soo gudbiyeen codsiyo kala duwan waxaana golaha wasiiradu maanta guud ahaan ay ansixiyeen codsiyada ka yimid gudiyadaasi. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegtay madaxweyne maanta oo 22 Agoosto wuxuu ku magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa maanta loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxaana xilkaas hore uga geeriyooday Allah u naxariistay duqii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yarisow oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar qarax ahaa oo ismiidaamin ah isla markaana lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. madaxweyne Farmaajo ayaa kula dardaarmay ninkan xilka u magacaabay inuu ka soo dhalaalo isla markaana waajibaadkiisa u guto si wanaagsan. si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa dhegta u taagay halka uu ku dambeyn doono cidda loo magacaabi doono gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho kaas oo ku geeriyooday Allah u naxariistay Injineer Yarisow.